Diyaaradan ayaa siday deeq gargaar ah oo loogu talagalay in lagu gurmado dadka ay abaaruhu sida daran u saameysay. Dowladda Qatar oo saaxiib la ah Soomaaliya ayaa deeqdan oo gaaraysa 45 tan oo macaawin ah iyo kuwa soo socda u talgashay in ay u gurmato dadka Soomaaliyeed ee xilligan wajahaya culays dhanka abaaraha ah. Hay'adda Qaramada Midoobay ayaa baaxadda abaarta ku tilmaantay mid suuragal ka dhigi karta in ay u xubsiibato macluul galaafata nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. Safiirka Qatar wasiir ka tirsan xukuumadda maareeyaha guud ee maamulka hay'adda dowladda rayidka Soomaaliyeed ayaa ku sugnaa garoonka iyaga oo kormeerayay dejinta gargaarkii saarnaa diyaaradda. Safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya ayaa yiri iyada oo laga duulayo xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar anagoo ka jawaabayna dhibaatada bini'aadanimo ee ka jirta Soomaaliya waxaan u deeqnay 45 tan oo macaawin bini'aadanimo oo loo soo marsiiyay sanduuqa horumarinta Qatar. Tani waxay noqonaysaa gargaarka aan la garab taaganahay shacabkeeni walaalaha ah ee abaartu halakeysay waxaana xafiiskeenii Qatar Khayriya iyo Bisha Cas ay si wada jir ah u jaabayaan in loo gurmado shacabka Soomaaliyeed si loo yareeyo abaartu ay noloshoodii sida caadiga ah ugu soo laabato. Agaasimaha wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka iyo wasiirka gaadiidka dowladda hawada xukuumadda Soomaaliya Duraan Axmed ayaa ka madceliyay deeqda Qatar ay soo gaarsiisay Soomaaliya xilli baahi weyn loo qabay. halkan la jooga wasiirka dowladda iyo gaadiidka cirka wasiir Duraan iyo sidoo kale safiirka dowladda Qatar oo halkan maanta u joogno inaan kala wareegno dowladda Qatar deeq macaawin ah oo ugu deeqeen dadkii abaaruhu saameeyeen markana waxaan ku soo dhaweynaa wasiir Duraan munaasabadan aan kala wareegayno dowladda walaalahana ee Qatar macaawinada ay ugu soo talagaleen oo ugu deeqeen dadka Soomaaliyeed walaalahooda saameeyeen abaaruhu run ahaantii waxa weeye dowladda Qatar iyo dadkeedaba abaal weyn ayaan ugu haynaa waan aad baan ugu mahad celinaynaa markastaba sida walaaltinimada leh oo ay u garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed oo markasta dhibaataysan oo ogsoonahay ilaa iyo 22 sano la soo dhaafay markasta oo dhibaatooyinka noocaan kale ay dhacaan dowladda Qatar iyo dadkeeduba waxay uga jiraan kaalinta ugu horeysa inay kala qayb qaataan ama ay caawiyaan dadka walaalahooda oo dhibaatadan ay soo gaartay dhibaataysan ama abaaraha iyo waxyaabaha la midkaaba masiibooyin kala duwan ama kuwa dabiiciga ama kuwa dadku sameeyay hadaanba inay qayb muglo wanaagsan ay ka qaataan aad iyaan uga mahad celinaynaa aad iyo aad u mahadsan yihiin marka la kala barto dadka walaaltinimada iyo saaxiibtinimada dhabta markay tahay marka u baahan tahay qofka ku garab istaaga oo ku caawiya marka waxaan uga baranay dowladda Qatar iyo dadkeedaba mar walba inay dadka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin waan rajaynaynaa haddii Ilaahay dad Soomaaliyeed oo dad abaalka loo gala yaqaana haddii Ilaahay inaan mar badan oo kale inaan u gudi doono abaalkaas walaaltinimada ay noo geysteen aad baan u mahad celinaynaa safiirka halkan Xasan Xamse iyo isagu maanta diyaaraddan shixnadan wadi alaabta isagu keenay la socday iyo dhamaanba dowladda uu wakiilka ka yahay Qatarba aad baan u mahadsantihiin waxaan leenahay jazaakumullahu khayr. Gurmadkan ayaa ku soo aadaya iyada oo maalmo ka hor Wasaare Maxamed Xuseen Raable uu sheegay in abaaraha dalka ka jira ay saameysay ku dhawaad 6.9 milyan oo qof. Haajir Abdulqaadir, RTN TV, Muqdisho.